السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلقة تقدر تستوعب أوفيشال مجاي عبد الرحمن ولا الجنال كدي أكسبت سبسكرايب صار سيكوسو كرام قالت هيك وحكون جنا تحنه هني أها باسف إنكم وحاد هني وأنا سمسا دخل كل دوان أديكو ميل كشخينا أما أديكو هل كان عسله إن الدور ميل وكل دوان أتقل أكسبت مقال كوري وحكو شرحني وحلو يقنان بلوغين haddii aadan soo daawan blogging waa habka ka mid ah hababka ugu fudud aad ku samayn karto dakhli. muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa YouTube. sidee YouTube lacag aad ugu samayn kartaa? haddaba ma ogtahay intaasoo bilaayiin oo qof inay maalin walba isticmaasho YouTube ayuu ka daawanayo muuqaalo qof walba xiisi gelinaya, haddee tahay shactiro, haddee tahay taariikh, haddee tahay dhaqaale, haddee tahay waxbarasho, haddee tahay caafimaad, everything uu qof walba u baahan yahay markaas danihiisa uu ka daawanayo. ilaahay subxaana wa tacaala qofka bini'aadamka ah wax buu u gaar yeelay sibo, haddee tahay dadaal, haddee tahay karti, haddee tahay waxqabsi. ilaahay subxaana wa tacaala nimcadaas uu adiga ku siiyey haddii adiga ka faa'iidaysan weyso laga yaabee biri maalin inaad ka shallaydo oo aad dhahdo waay maalintaas arin waxaan maxaa u qabsan waaye. ogow YouTube waa mid ka mid ah fursadaha aad dakhli ku samayn karto. ka waran haddii intaasoo malaayiin, intaasoo kumanaano qof ee adiga ay wax kaa sugayaan, aqoon, warbixin ee kaa sugayaan, bal ku xisaabtan fiirsashadaas keliya adiga ay ku daawanayaan oo adigiina dee aad koow hadafkaadii ahaa inaad dakhli ka samayso, labo aqoontaadii iyo research badan aad helaysid. macnaha mar walba adigii YouTube aad soo dhigaysid waa inaad mar walba maraajic aad samaysaa oo dee xogo kala duwan oo kala aad soo ururisaa. haddii markaas aadan ahayn qof talenti oo shactaro ama sheeko meesha soo geliyo, waayo waxaad u baahan tahay dee caafimaad tahay inaad soo bandhigaysid, haddee tahay ganacsi, haddee tahay la talin, haddee tahay luqad, haddee tahay everything waxay kaaga baahan yihiin inaad research aad soo samaysto adiga aad soo dhistid. kullama adiga aad soo dhistid faa'iido waxaa heshay in adiga nafsadaada aad kor u qaadid, aqoontaada iyo waxbarashadaada iyo skillskaadina ay horumaraan, dadkii bulshada ahaana ee adiga kaa anfacaan wixii adiga u soo gudbinaysa. soo bulshada markii adiga kaa anfacayaan waxa adiga u soo gudbinaysid that's faa'iido waaye. faa'iido labaad oo ah inaad adiga dakhli aad ka helaysid meesha, dakhli oo ku kaaba oo dee noloshaada qayb ka mid ah kaabaya. ma fahantay? waa inaad adiga logic maskaxiyan caqliyan aad ku xisaabtantaa, war ani bulshadaani maxaa waxtar leh aan u soo gudbi karaa. okay, wixii dembi xagga iska dhig, laakiin wixii adiga garaadkaaga wanaagsani iyo kartidaada iyo aqoontaada iyo dhallinyarnimadaada maxaa awoodaa anida aan dhihi karaa bulshada maanta waan anfaca waxaana u soo gudbina. waxaa bannaan 100 majaal oo kala duwan oo adiga aad bulshada u anfici karto, adigana dakhli markaas aad ku samayn karto. YouTube waa furaha aad ku samayn karto dakhli, inaad muuqaalo kala duwan aad bishii soo geliso, dhowr muuqaal, 10 muuqaal, 5 muuqaal bishii waxaa awoodid. samaha subscribe-kaaga waxba iska waalin, okay, waxba iska waalin. waxaan basic laga soo bilaabin meel sare laguma gaaro. samahan waxaad u baahan tahay haddii aad diidiin camal u socotid ugu hadafaa leedahay. hadaf ku muuqda waxaa waaye inaad taargetkaaga audiensigaaga bulshadaada ay adiga ku aaminaan. bulshada adiga markay ku aaminaan ogow mar walba adiga way kuu soo laabanayaan oo hebel maanta wuxuu soo dhigay, hebel maalmahan maanan daawanine muuqaaladiis waan u xiisay aan dib ugu laabto. okay, adiga marka wax lagaaga baahan yahay inaad aadan iswaalin, wax la yaqaan oo waxtar leh oo quality leh oo tayo leh inaad bulshada markaas adiga u soo bandhigtid. muuqaaladaas adiga bulshada u soo bandhigaysid waxaad ka helaysaa intaasoo lacag oo maalin walba aad ka heshid. bishii haddii YouTube even ay kaa soo gasho $200
dadaan maalintii intaasoo ka badan ka sameeya dadaan maalintii intaasoo badan ka sameeya estimation aniga kaaga soo qabto $200 oo kaliya haddii ay bishii YouTube ka soo gasho shaqadaada wadatid waxbarashadaada wadatid bloggingkaada aa wadatid waxyaabaha dambe gadaal ay kaaga sheekaytaan aa wadatid soo ku xisaabta bishii intaasoo passive income oo dakhli kala duwan ayaa ku soo galaya qofaan Soomaaliya waa hab aad u fudud oo aad dakhli ku samayn karto habka labaad oo mar walba bees influencer inaad noqotid influencer muuqaalka horena ku soo sharaxnay muuqaalkan ku celinayna waa inaad bulshada aad ku leedahay saameyn xooggan janaalkaada markii uu ku kala kaco oo dad badan ay kugu xiran yihiin dadkaas adiga ku aaminsan yihiin oo waqtiga adiga aad wax soo gelisid intaas oo qof ay ku daawanayso ogow markaan waxaa tahay qof bulshada saameyn ku leh qof waliba adig u baahan haday tahay ganacsato haday tahay dad taliyaal haday tahay yani la dhaho hebel maanta xiisina kuu sameeyo hebel maanta barnaamijkaas kuu soo dhigo hebel waxaana kaaga hadlo oo bulshada waxaas adiga yani ha kuu soo bandhigo soo adiga markii shirkad hebel aad alaabteeda YouTube-kaada uga xayeysiinaysid of course waxaa helaysid waa lacagtaas qaabkay kugu soo gashay bilaash kugu soo gashay waxay kugu soo gashay sumcadda adiga bulshada aad ku dhex dhistay kartida adiga aad lahayd iyo qaabka adiga aad isu dhistay waan Soomaaliya qaabka adiga markaas aad isu dhistay mar walba waxaad ku dadaashaa wixii nafsadaada anfacaya inaad ku dadaashid wax adiga biri nafsadaada anfacaynin ilaahay xaqiisa aadan dambi kaga galaynin ma fahant yani dambi aad kaga galaysid yani xumo iyo sumcad xumana bulshada aad kaga dhex helaysid mar walba intaa ka tilaabsan kartid oo aad ka jeesan kartid ka jeeso markaa sumcad bulshada ku dhex leedahay intaas qof adiga kuu baahan maanta waxaa lagu leeyahay waa lagu soo baca inuu maanta waa kuu baahannahay jireenna rabnaa inaad bixisid koorsa rabnaa inaad bixisid intaasaan kuu ogolnahay intaasoo qofa maanta kuu wacanaynaa ma fahantay ada marka influencer qaabka ku noqotay waxaad ku noqotay liajli inaad bulshadaas YouTube-ka aad si wanaagsan oo qurux badan aad isku bartay ma fahantay Soomaaliya sidaas adiga xaysiid aad ku samaysay waxaan rajaynayaa inaan wax badan aan ka faa'iiday muuqaalada oo aniga aan raba inaan soo koobo iyo warbixin intaan inka badan aan hayo intaan aan ku soo wada koobi karin oo aan jeclahay in muuqaalo gaaban oo qurux badan aad daawataan waxtarna idin leh waxaan ka codsanahay insha Allah mar kale inaad janaalka subscribe saartid la soco taxanaha inaad sameyso dakhli kala duwan